iyadoo ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in uu coronavirus u geeriyooday qofkii ugu horeeyay oo ku nool magaalada Muqdisho ee aan dibadda ka imaanin ayaa si aan ugu koorgalno waxa aynu tagnay isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo muddo lagu baxnaaninayay waxaan markaa dabadeed la kulmay qaar kamid ah takhaatiirta iyo howlwadeennada isbitaalka Aadan Cadde oo uu kamid yahay agaasimaha caafimaadka isbitaalkaasi Maxamuud Zaahid Maxamuud oo ka warbixiyay qaabka ninkaasi uu ahaa iyo astaamaha lagu arkay markii uu jiifay isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho marka maadaama ay ilmihiisii la socdeen iyo isagana nin aad u liito markaas kaalmo u baahan u ahaa waxaan u sameynay qol baan u qoondeynay qaybta jiifka ah shaqaala gaara ayaan u sameynay oo la shaqeeya meeshaas ayaan marka odayga xaaladiisii aan kala socon jirnay oo maxaa la yiraahdaa maalin walbaba subax iyo habeenba iyo goor walbaba la socday si joogto ah odayga wuxuu u baahnaa oxygen in la siiyo marka cabsidaas marka waxaa ku jiri karay marka inay maadaama uu adduunka dhan maanta hadda corona cabsi la qaba ay ku jirto digniintaas annagoo qabna iyo cabsidaas ayaa waxaan dalabnay in ay test laga qaado oo loo diro dibadda oo lasoo hubiyo inuusan qaban marka dabcan medical terminology-ga waxaa lagu yiraahdaa rule out waxyaalo kale uu noqon karaa marka history-ga waxaa kaloo ku jiro kaa sheeka dhaafay in odayga mar laga joogo bil laba bil inay trauma ku dhacday jug feeraha baabuur uu saarnaa uu gadoomay marka dad badan ay buurteen marka wiilkiisa wuxuu ii sheegay in mar walba uu dhihi jiray aabo yani culaysa iga haysta feeraha culaysa iga haysta waliba qaybta midigta uu aad uga cabanahayay uu leeyahay mar walba culaysa jira haddana marka odayga si joogto meesha uga caban jiray feeraha culays inay ku haysto mar laba bilood laga joogo marka taas waxay noo keenaysa in haddana ku fikirno waxyaalo kale jug iyo waxaas ay gaartay trauma ay jirto inahaas un haddii la isu geeyo micnaha covid-ka iyo corona wuu ka mid noqon karay waxa lagu fikiraya laakiin meesha markaas ma taagnayn anagoo ku talagelaynana waxaan dalabnay inaan test laga qaado oo waa dirnay nasiib daro jawaabtii way soo daahday oo hadda habeen horey timid laakiin intii karaankeenna waa ku dadaalnay anagoon hubin boqolkiiba boqol in corona in yani dad gaar ay u shaqeeyaan qol gaara uu helo oo aan lagu bukaan kale lala seexin jawaabtii habeen hore waxay soo baxday inay positive tahay isla markii corona qabo isla markii marka waajibaadkeenaan ka gudanay waa bukaankii waxaan ku wajahnay habeen bar isbitaalka Martiini dhakhtarkii isaga ku howlanaa mar walba kooxna uu raacay sidoo kale shaqaalihii nurse-ka ah isaga sida gaar ah ugu shaqeynayay waan raacinay xataa markii dambe talaabo waxaan qaadnay maalinkii ku xigay shaqaalihii qaybta jiifka oo odayga joogay qolalkii kale xataa shaqaalihii ka shaqeynayay oo habeen iyo maalin isu bedelaya xataa isaga aan ku mashquulsanayn waa fasaxnay oo guryahooda aadaan nari marka qoladii maxaa la yiraahdaa isaga u shaqeynaysayna waxaan ka dalabnay wasaaradda in laga qaado test iyagana la hubiyo inay qabaan cudurkii isla ma badaahinba odayga maxaa la yiraahdaa allah u naxariisto waa Martiini ku dhintay markiiba inkasta oo baaritaan la sameeyay lagu xaqiijiyay in uu qabay coronavirus haddana takhaatiirta isbitaalka Aadan Cadde waxa ay shaki badan ka muujinayaan qaabka ay u dhici kartay arrintaasi iyagoo sheegay in calaamadaha mar walba la baahiyo xayeysiimahana lagu sheego inta badan laga hadlo cudurkaasi coronavirus in aan lagu arkin shakhsigan u geeriyooday coronavirus oo ay ka mid tahay qufac laguma arkin qandhana laguma arkin intaas laguma arkin marka laga reebo oxygen oo markaasi qaadanaya mar walba laakiin waxa yaab leh qufacna ma lahayn qandhana ma lahayn taasa ma lahayn temperature aad ah qufacna ma lahayn mar haddii la shaaciyay in qofkii ugu horeeyay cudurka coronavirus uu geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa waxaa muhiim ah in qof kasta oo Soomaaliyeed uu taxadar ka muujiyo cudurkaasi Xasan Sheekh Axmed Cadde Somali Cable magaalada Muqdisho.